iyadoo uu maanta muddo dhowr iyo 20 sano ah kadib ka furmay magaalada Muqdisho shirka sanadlaha ah ee wadamada xubnaha ka ah urur goboleedka IGAD isla markaana ay dawladda Soomaaliya sanadkan ku martigelisay caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa waxaanu raayadooda wax ka weydiinay sida ay u arkaan qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London waxa ayna ka yiraahdeen sida tan Bismillahirrahmanirrahim magacaygu waa Maxamed Xuseen Usmaan degan magaalada London gaar ahaan xaafadda Camden farxad weyn bay u tahay ummadda Soomaaliyeed in shir lagu qabto magaalada Muqdisho gaar ahaan kii IGAD Soomaaliya waxay ka mid ahayd dadkii aasaasay unkumay urur goboleedka IGAD 1986 magaalada Djibouti magacayga waxaa la yiraahdaa Mahad Maxamed Yuusuf waxaan ka mid ahay jaaliyadda London UK ku dhaqan waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynayaa muddo 25 sano kadib dawladdeena federaalka ah ee uu hogaamiyaha u yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo Prime Minister Cabdirashiid Cali Sharmaarke Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke maanta waxaa guul iyo reyn iyo farxad intaba noo ah muddo 25 sano kadib inaan maqalno shirkii golaha IGAD in Muqdisho maanta lagu qabanayo shirkaas oo ah shirka joogtada ah sanadkii halka mar la qabto oo sanadkii ka horeeyay lagu qabtay magaalada Addis Ababa sanadkan lagu qabanayo magaalada caasimadda Muqdisho magaalada Soomaaliya caasimadda waa Muqdisho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa soo dhaweynaynaa waa hambalyeeynaa farxadeena lama qiyaasi karo magaalada Muqdisho horumarka ka socda dawladnimada ka socota xasiloonida ka socota dhanka dhaqaalaha horumarinta nabadda xasiloonida ilaahayna waxaan ka baryaynaa cid kasta oo nabadda meesha ka socota carqabad ku ah inuu ilaahay naga qabto bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa way Qadra Xasan waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogan waxa farxad weyn ah oo la heli karin maanta in baris ka bilaabanayo shir oo ururada madowga Afrika IGAD ay iskugu tageen magaalada Muqdisho oo nabadeeda ay kor noqotay wadankayga iyo nabadiisii ay sii fiicnaanayso inta kale oo ka dhiman Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay noo dhameystirto taas oo nagu dhiirigelinayso inaan iskugu tagno wadankayga aan ku noqono waxna ka qabsano sida ay dawladaha kale oo dariska nala ay IGAD noogu imaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga waa Maxamed Cabdi aragtideeda ku saabsan shirka maanta ka furmaya magaalada Muqdisho runtii waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed cadeynaysa inay ka soo kabatay dhibaatooyinkii iyo rafaadkii ay soo mareen 25 sano la soo dhaafay waa calaamad adduunkana tusaysa inaanu nahay dad diyaar u ah maanta inay dib u soo ceshadaan haybadii ay ku lahaayeen adduunka marka ugu horeysa magacayga waa Durraan Shirwac dabcan waxaan ahay suxufi ka howlgala magaalada London ee dalka Ingiriiska dabcan marka ugu horeysa waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan hambalyo mar labaad waxaan leeyahay madaxda sare dawladda federaalka Soomaaliya hambalyo waxaan u hambalyeynayaa shirka ka dhacay maalinimada Sabtida ee magaalada Muqdisho ay isugu imaanayaan dhammaan wasiiradii urur goboleedka IGAD bariga Afrika dabcan waa markii ugu horeysay muddo dhowr iyo 20 sano ay ku hoydaan madax heer wafuud oo intaas leeg magaalada Muqdisho waa sasaan wanaagsan waa sasaan nabadeed waa sasaan aan dhihi karno waa mid ku dayasho mudan ma sha Allah baan leenahay sidoo kale waxaa jira warar sheegaya in madaxweynaha dalka Turkiga uu dhawaan ku soo beegan yahay magaalada Muqdisho sanadkii 2011 mar uu yimid magaalada Muqdisho eraye suugaaneed oo sameeya waxaa ka mid ahaa ayadoo abaar xun ay taagnayd oo aan iri Erdogan albaabadii furihii awdnaan noo noqo u gurmada intii haray dadkii ama abaaraystay dabcan waa markaan haddana mar labaad buu imaan doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim anoo magacayga la yiraahdo Ismaan Shaafici Garyar oo ku nool magaalada London shirkan ka socda hadda IGAD ka furmay magaalada Muqdisho aad iyo aad ayaan u taageersanahay maanta midda kale fursadda aan rabo inaan kaga faa'iideysto fursaddan maanta waxa weeye inaan aad u taageersanahay ra'iisul wasaaraha cusub waddanka Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Cali aad iyo aad baan ugu faraxsanahay shirka IGAD oo lagu qabanayo waddanka Soomaaliya waliba waxa ka sii jeclaalahay shirka OUD in Afrika lagu qabto sanadada soo socoto waxaan u hambalyeynaa madaxweynaha horumarka uu ku suubiyay dalka Soomaaliya shacbiga Soomaaliyeedna waa in martida timaada la xaq doona waa mahadsantihiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamuud Axmed Yaasiin dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ka salaamayaa halkan haddii aan ka hadlo fikradeeda oo dawladda Soomaaliyeed martigelisay shirka IGAD aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii haddaan nahay dhalinyarada sportska dhalinyarada kulli qurbaha ku nool siiba gaar ahaan London Yusuf Garabey
raadiyaha iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed London.